digu waa saaxiib badeecad badan oo aan hub kaliya ahayn ayay naga iibsadaan markii aan booqday waxay ballan qaadeen inay naga iibsanayaan badeecadan $450 bilyan iyo $110 bilyan oo qalab military ah waa dalabkii ugu weynaa taariikhda dalkan laga yaabaa taariikhda adduunka u malayn maayo inuu abid dhacay dalab dhan $450 bilyan xasuuso ballantaas ayay qaadeen Sacuudigu markaas waa saaxiibo muhiim ah laakiin waxaan doonayaa inaan ogaado wixii dhacay khaladka yaa iska leh dabayaaqada toddobaadkanna waynu ogaan doonaa where is the fault and we will probably know that by the end of the week. Mr. Khashoggi waxa walaac ka muujiyay oo maqaalkiisa ugu dambeeyay Washington Post uu ku sheegay in falalka dawladaha ay horseedayaan cambaarayntaasi oo si degdeg ah ay ugu xigto aamusnaan haddaba maxaa ka dhalan kara arrinka Jamal Khashoggi waa kan Simon Henderson oo ah khabiir ka faalooda arrimaha Sacuudiga. The idea that there can be no consequences at all for what fikradaha in aanay cawaaqib ka imaanin arrin ay tahay in wali la cadeeyo 100% waa wax qof kasta uu iska og yahay becoming obvious to pretty well everybody waana wax laga argagaxo laakiin Sacuudigu uu sii wadaya xiriirka saaxiibtinimo uu la leeyahay Mareykanka will maintain its relations with the United States but there has to be some sort of laakiin waa inay jirtaa cawaaqib ka soo baxa haddii kala cawaaqib xumo ayaa ku soo noqonaysa Washington DC iyo aqalka cad sababta ay tallaabo u qaadi waayeen not take action against Saudi Arabia